الحياة سكولسي. اوكي بسم الله. وعشرتنا ورنكها دكسك الحياة. maanta ay taariikhdu tahay 21 bishii afraad 2020 maadadeen akhridoona waa maadada afka Soomaaliga ee fasalka saddexaad waa page-kii 51 cutubka labaad casharkiisa shanaad. okay casharka ciwaankiisu wuxuu noqon doonaa dugsiga warsame. warsame waxa uu dhigtaa dugsiga hoose dhexe ee galbeedi waxa uu ku yaalaa gobolka Awdal ee Boorama xaafadda shacabka agagaarka Hotel Rice. dugsiga galbeedi waxa uu saddexda jiho ee kala waqooyi bari iyo koonfur ka mara wadooyin balse dhinaca galbeed waxa ka xiga dhisme. warsame waa fasalka saddexaad ee dugsiga hoose waxa uu aad u jecel yahay maadooyinka kala diinta Soomaaliga iyo xisaabta. dugsiga warsame ee galbeedi waxa uu ku yaalaa deegaan siman. arday casharkeena maanta waxyaabaha aynu ka faa'iideyno waxa ka mid ah in ardaydu bartaan dugsigooda iyo gobolka uu ku yaalo, sidoo kale in ardaydu bartaan magaalada uu ku yaalo, deegaanka uu ku yaalo siduu yahay, ma deegaan cagaaran ba, ma meel buur ah ba, ma meel siman ba, inay ogaadaan maadooyinka ay dhigtaan, sidoo kale inay bartaan maxaan ku raadayay maadooyinka macallimiinta oo kala dhigta oo maxaan ku raadayay ardaygu marka uu kala garanayo maadada macallinka uu dhigay waxa uu sidoo kale garanayaa maadada uu ugu jecel yahay kale. waxyaabaha iyo waxyaabo kale oo la mid ah ayaan casharkeena maanta ka faa'iideysanayna. haddaba haddii aan ku celiyo akhriska casharka waa dugsiga warsame ciwaanku. warsame waxa uu dhigtaa dugsiga hoose dhexe ee galbeedi waxa uu ku yaalaa gobolka Awdal ee Boorame xaafadda shacabka agagaarka Hotel Rice. dugsiga galbeedi waxa saddexda jiho ee kala waqooyi bari iyo koonfur ka mara wadooyin balse dhinaca galbeed waxa ka xiga dhisme. warsame waa fasalka saddexaad ee dugsiga hoose dhexe waxa uu aad u jecel yahay maadooyinka kala diinta Soomaaliga iyo xisaabta. dugsiga warsame ee galbeedi waxa uu ku yaalaa deegaan siman. casharkeenu maanta halkaas inoogu joogayaa waa inoo casharka xiga إن شاء الله تعالى.